Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo ah suldaanka saddexda gobol ee Awdal, Salal iyo Gabiley ayaa maanta deeq lacageed ku wareejiyay guddiga abaaraha ee heer gobol iyo maamulka gobolka iyo ka degmada, isagoo sheegay in deeqdani ay ka soo gaadhay jaaliyadda reer Gabiley ee ku kala nool daafaha dunida. Mas'uuliyiintii halka ka hadashayna waxaa hadaladoodii kamid ahaa. Si kastaba ha ahaatee, dadka ku nool deegaanada Gabiley ee ay abaaruhu saameeyeen ayaa ka gudbay wajigii biyo dhaaminta ahaa, balse u gudbay waji cunto raadin ah maadaama ay xoolaha intoodii badnayd ku ladeen diifta, daalka, haraadka iyo dhibta ka soo gaadhay abaartii soo martay. waxaan saaka halkan xafiiska gudoomiyaha gobolka Gabiley oo ay fadhiyaan guddigii taakulaynta abaaraha ee gobolka Gabiley waxaan ku wareejinayaa lacag dhan $15,000 oo ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda Gabiley deegaanka Gabiley ka tirsan ee mas'uulka ka ahay, taasoo ay igu soo direen xagga Boorama oo jooga aanay garteen inaan ku wareejiyo guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Gabiley si ay ugu dhamaystiraan wixii aanay gaarin ama raashinkuna gaarin aanay soo wakiisheen. anna saaka ayaan ku wareejinayaa guddidii oo gudoomiye u yahay gudoomiyaha gobolku iga gudoomiye kaalmadan $2,576 oo ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda ama gabdhaha jaaliyadda dalka Holland ee gobolka Gabiley. sidaa darteed waan ku wareejinayaa guddiga $1,000 oo laga soo diray dalka Canada magaalada Ottawa. lacagtaasi oo ay soo direen jaaliyadda reer Gabiley ee ku nool magaalada Ottawa oo runtii doorka ugu weyn ay ku lahaayeen haweenka magaalada Ottawa. lacagta waxay la soo gaarsiiyay Maxamed Cabdullaahi Suwayn iyo Cumar Xuseen Miir oo labada xubnood ee runtii inoo soo diray nagu soo hagaajiyay. lacagtaasi oo ugu tala galeen inay kaga qayb galaan doorkooda taakulaynta abaaraha dadka abaartu saameysay. aad iyo aad runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa dadka kala duwan ee lacagaha soo gaarsiiyay guddida abaaraha ee gobolka. dadweynaha qurbaha ku nool oo Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo suldaanka uu yahay lacagta $15,000 kaga soo qayb galay taakulaynta abaaraha oo runtii aad iyo aad wax loogu faanaa. suldaankana aanu si khaas ah ugu mahadcelinayno oo doorkiisii uu ka qaatay arrinta abaaraha. madax dhaqameedku dee abaabul iyo waxa weeye wuxuu leeyahay tartansiin iyo inuu dadkii yiraahdo hawshaasa jirta uu baraarujiyo. tanna waxay ku timi baraarujintiisa waana waxa weeye waajibkiisa runtii uu ka soo baxay. aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa suldaanka waana furfurcoon. Cabdi Cabdullaahi Daar, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Gabiley.